السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد عن تعافيمات ما توحين تصايا سيدلو سميو بير بريد باقول صحاي وحن كشبتي كوبيو قندعة وحن كسر درسة قاضي استي قاضي السكرة سيفي عنا يان سوق قصي كدم نواد بولايا أو 5 دقيقة يان سوقايا إن شاء الله. shan daqiiqo kadib yisiga waa diyaar. laba bur baan isticmaalaya kala nooca laba koob oo burka cad ah oo plain-ka ah ayaan ku soo darsaday. koobka aan isticmaalaya waa measurement cup marka laba koob oo burka cad iyo hal koob oo whole wheat ah isku daraya. burka cad waa laba koob iyo koob whole wheat ah. intaas yarta ah waa burka cad halfkaas kale oo waxaan ku dhameystiraa insha Allah oo waxaan rabaa inaan inta ugu dambeyso oo like markaan qasaayo inaan ku dhameystiraan rabaa. waxaan kale ku daray qaado maxaa la jiray olive oil ah iyo hal qaado cusbo ah. marka waa muhiim inaad si fiican u qasto ilaa 10 daqiiqo. videoga waan jaray laakiin se waxaa qasaysaa ilaa 10 daqiiqo ayaad xashaysaa. marka haddii aad dareemaysid gacanteed kuma degdegaayo rootigan xoogaa waa yara uu ka adag yahay kii hore oo maalin dhaweyd maadaama oo maalin hore rootigan soo galeen falaadka ahaa sidaas oo kaleeto inuu jilcanaada maaha laakiin se inuu saaid u qalalan yahayna maaha. xoogaa waa taaki uu ka adag yahay kii hore. marka waqti dheer kadib ilaa 10 daqiiqo saan ku soo baxay waa inuu smooth yahay gacantaadana soo raacinin. saliid yaran korka mariyay soosan iga qalalin. hal saac sugaaya insha Allah double soo noqdo hal saac kadib waa kana marka hadda waxaan rabaa inaan saasan gacanteeda ugu soo fidiyay kadibna waan afar u jaraya haddana waa si kala jarjaraya afartaas oo si kala jarjaraya waxaan u jaraya qaybo yar oo waxaan u gogoynaa sidii oo qiyaastii aan ka rabay inuu ii noqdo. marka soo kuskusaya bas camal roundkaas kale ka soo dhigaya saana ku soo dhameynaya marka labada ugu horeysa intasay. insha Allah waa daboolaya xoogaa yar kadibna waxaan rabaa inaan fidiyo oo size-kii aan ka rabay aan ka dhigo kadibna sugo. haddana waan sugayaa ilaa 30 daqiiqo ilaa 40 daqiiqo aan daboolaya markii aan soo fidiyo. marka laba xabaan ka tusaaya labada ugu horeysa aan ka tusaaya size-ka aan ka soo dhigay iyo thickness-ka marka insha Allah saas inuu ku ahaado waaye oo saaidna uusan u buurbuur kaaga ahayn. bacdaas soo diyaarsaday meeshaas waxaan soo dhigtay bac marka waan soo kor saaraya kadibna shukumaan kor ka soo saaray suusan iga qalalin. waxaan sugaa ilaa 30 daqiiqo kulli markaan soo fidiyo 30 daqiiqo kadib waxaan bilaabayaa birta inaan dabka saarto oon sameeyo. marka waanu saas ku ahaa size yar oo saaid qafiif ah inuu ku ahaado waaye. aniga maanta mid waaweyn ma sameyneynin oo mid dhexdhexaad ah aan sameynay. masha Allah hadda waa kana birtaana dabka soo saartay dabka medium waaye already hal xabaan sameeyay. marka
dabkayga medium waaye birta saaid uma kulula marka xogaa kamaradayda macnaha lightkayga waa saaid waxaan layda iga korkayga lightka ah waaye waxa dhan qarinayo oo like saaid ay bright u tahay meesha laakiin si ma sha Allah dhaxda waxa ka soo galay air marka wuxuu noqonayaa dhaxdiisa way furnaanaysaa oo waa sida ku taqaanid beer breerka macnaha dhaxdiisa waxa la gashan karaa oo dabaysha waxa ka dhigayso airka kulula ka dhigaya sidaas oo kala furay macnaha hadhow marka midda ku goyso labo noqonaya like dhaxdiisa way banaanaanaysaa marka saasan ku soo dhameynayaa aniga markii aan bilaabayba oo size yar oo like saaid mid waaweyn ma rabin inuu yar yahay oo like laba jab camal markii laga dhigo oo wax yar oo gacanta lagu qabsan karo oo ahaadaan ka rabay marka rootigan haddii aad baratid karintiisa waa nacaysaa midka stoorka run ahaantii waa fresh waa ogtahay waxa aad ku dartay waxyaalaha oo kiimikooyinka lagu daro cuntada kuma jirto oo dheereynaysa inuu shelf waqti dheer saarnaado waa wax adiga aad ogtahay wixii aad ku dartay oo waana very easy haddii aad barato run ahaantii masha Allah aad u simple u yahay aniga rootiyo badan aan sameeyaa oo run ahaantii marmar emergency ama ogi carruurta markuu iskuulka u furan yahay oo kaleeto marmar aan daalanahay oo aan carruurta ka keeno masaajidka oo kaleeto aan stoorka soo maraayo maalintaas waxay ku gudbaan maadaama carruurta qado u qaataan iskuulka waqtiga maalintaas haddii aanan ka gaarin rooti banaanka ka soo qabsanaa laakiin rooti kale ma gado inaan sameysto cuntada isku dayaa oo ana isku taxallujiyo wax kasta inaan aniga aan sameeyaan isku dayaa marka ugu horeysa ka halaabayn waxa laakiin marka dambeeto oo labaad waad hagaajinaysaa marka in wax la isku dayaa fiican mar walba ma sha Allah sidaas ku soo dhameynaya kulli oo haddii aad fidiso hal mar waxa markii wax ka kala gubanayaan oo aad ku rafaadayso waa markii aad isku dayso adigoo birta dab ku saaran tahay at the same time arabtid inaad fidisid kow ma soo fiixin mar labaad oo si fiican kuuma soo baxayo labane inta fidinayso ku sii jeedid uu ka gubanayaa kii kala dab ku saarnaa marka haddii aad kala qaadid hawsha way ku kala fududaanaysaa marka hore waa soo fidiyay waa sugay intuu soo faxo hal mar oo mar labaad oo kale uu soo faxo 30 daqiiqo kadibna waa dubaysaa insha Allah soo dhameeyay ku soo baxay aniga maanta waxaan u sameystay laba qaybood oo qudaar ah digirtan waa chickpeas iyo digirta guduudan oo kaleeto oo kidney beanska iyo qudaar kale isku daray baa igu jira digsiga dhinaca kalena waxa igu jirta qudaar kale ayadana oo sararahan u sameeyay digir tamadooba ku jirto ayadana waa chipotle style-kii hore aan u sameysan jirnay oo kaleeto marka waa kasa my pita bread ما شاء الله those small pockets oo ii noqday oo wax la gashan karo run ahaantii ma rabin intaas inay ka waaweynaato aniga ugu talagalay inuu saas u yaryaraado inta waa ka waaweynaysan kartaa haddii aad rabtid marka insha Allah saas u jilcan yahay marka weelka ku ridanaysid marka weel ku ridaysid haddii shukumaan hoosta ka maray si uusan maaragtay oo hadda waa soo diyaar miiska aan wadaa ma sha Allah weelala ku soo riday waa soo jarjaray kulli rootiga oo dhan marka si uusan kaaga iska ka dhigdhigin oo like kulaylka steamki oo wuxuu ka dhigayaa uu isku dhigdhigayaa laakiin haddii shukumaan hoosta ka dhigtid maantii shukumaanka wuxuu qabanayaa moisture-ka marka shukumaana hoos ka dhigay ma sha Allah cashadan saan ku soo baxday waa side dish oo cashadan oo dhan maaha waxyaalahan simple ka ahaa oo bariiskii maanta baasan kariyay salad kale iyo cabitaankeena yaraa iyo intaana ka dhigay cashadeena iyo afurkeena aad ay fududeed waqti dheer uma qaadan run ahaantii burka qasidiisa 10 daqiiqo ah karintiisa oo another 10 daqiiqo ah
iyo khudaarta kala diyaarinteedii oo 10 daqiiqo ah marka masha Allah waa 30 daqiiqo total haddii aad ka hesheen videogan walaalaha kala share gareeya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh